arinto leylo gabadha qabsatay baraha bulshada sida ogtihiin gabadhan qisadeeda waxay ayada waraysiga bixisay xog aan soo baarnay boqolkiiba boqol confirm aan kusoo xaqiiqsanay gabadhan qisadeeda muuqaalkan waa ku jiri doonaa waana arki doontaan haddii la yidhaahdo gabadha ingiriiska waxba kama yaalaan ingiriiskana shaqo kuma leh ku 1989 ku dhalatay 4 biloodna ayada hooyadeed iyo aabeed waa noqdeen oo qofku Yurub ku dhashanay waalidkiisa waxa lagu wadanka inay ku dhashaan way number 1 number 2 waalidkiisa mid kamid waa inuu sharci wadan ku leeyahay deganaansho hooyada aabeedna markaa sharci kuma leeyahay aabeedna dawladdu u shahaad u shaqeynay siyaasi oo ah baasaboor diblomaasi watay hooyadana booqashay ku imaaday oo ayada uur leh meesha ku dhalatay saasay ku noqdeen oo kiiska horta ingiriiska meesha ku soo xirma gabar oo dhar buluug wada taarkiisa oo ayadoo yar iskoolka isku dhijinayna waa fake way ayada maaha gabadhan ayadoo 4 bil camal wax laga waday London oo waxa la geeyay Muqdisho ayadoo shan jirna habarteeda soo waday ayadii ilmaheeda maamadaas caashada macnaha ilmaheeda iyo gabadhan ay soo waday waxay keentay Holland iska dhiibeen oo saasa dhalashada ku qaateen kadib ingiriisku guray markii ingiriisku waxay tagtay ayadoo naag weyn ay tagtay oo 13 jira waxay kadib waxa Muqdisho la geeyay taas waa idin faa'iido doona gabadhan intay bank intay sheekadan wareysigan waxay kun ka sheegtay markii la xilinay bas ay kun ka sheegtay iyo mataqaana ninkaas lagu daray macnaha inta kale waxba kama jiraan aabeed waa dhinta Allah naxariisto markii xamar ay joogteen aabeed waa ka warqabi waa guriga waa imaanay 2007 dhintay gabadhan 5 la dhalatay hadda saacada in hadlaayo gabar walaasheed ku aabi kooya oo garow intay nin inta guursto garow u guurto kadib ay soo noqotay 10 sano ugu dambeysay isku dhawaayeen daris ahaayeen israaci jireen suuqi meel isku raaci jireen maanta waa noosha maanta xamar ay joogtaa walaasheed ay la dhalatay ku aabi kooya way walaalkeed kalena wuxuu joogaa ingiriiska mid uu jooga 2000 xogaa soo galay maxamed alla niweyn oo hadda 60 ku dhawaayay wiil kale xasan laa wuxuu joogaa masar wiil kale xuseen laayna hadda garow jooga ayada horta shantaasa ku aabi kooya aabeedna wuxuu dhalay ilmo kale u dhalay oo 9 kale oo naagta kalma kooda maamada dhimato kadib guur 9 kale oo ka dhalay maamada koorna sideetamaydin naag kale guursaday oo ilmo weyn oo ilmo si dhala si joog marka odayga dhowr ilaa cunug u dhalay qaar dhintay hadda waxa joogto dhowr 13 14 lagu qiyaas horta gabadha la dhalatay walaalaheed iyo aabeedna way ka warqabtay waa ogeed taas waxa confirm man million confirm way waxa u sameeysan way sheegi doonaa walaalayaal waxa horta gabadhan waxay sharci hadda macnaha ka sugaysaa inay soo noqoto oo jaanis ah oo hadii loo doodo oo wali process dheer ay mari doonto waxa Holland way meel kale kuma jirto wali Holland markay soo maamada ay keenaysay 2000 iyo waxa sheegay 94 markay Holland soo galayeen waxa waxay ku soo galay qaxootinimo ay ku soo galay balaado fiirso ee isku dhiibeen macnaha kiiskaasna waa laba maadaama 20 sano imqatay kiiskaas baaris dheer u baahan haddana waa aragtay 20 wareysay bixinaysaa marba waxay sheegaysaa habrati Holland iska dhiibnay dhalashada Holland waxay ku qaadatay hooyadeed caashi iyo ayada inay gabadheeda tahay macnaha caashi inay hooyadeed tahay ee dhalashada ku qaadatay hada safarada Holland loo diro waxaas arkayaan waxay leeyihiin marka hore waxa lagu sii qalad ay dhahayaan balaad u fiirso wareysidan badan way macnaha oo fiis gabadha laga raadinayo waxa hadalada was dhaafa 10 qof 30 qof wareysanayso balaad u fiirso marka dadka sharciga ma yaqaanaan ingiriiska iska dhahayaan marka saas rabaan ku faayo waxa walaalayaal Yurub ama ingiriiska cunuga ku dhasho hooyadiis aabiis waa inay wadan ku dhashaan number 1 number 2 labada waalid mid kamid waa inuu wadanka deganaansho ku haystaan labadaas hadii laga waayo labada waalid macnaha hadii wadanka sharci ku leeyahay macnaha cunugaas wadanku ma dhalan ma ilaa uu ka soo qaangaaray wadanku inuu joogo markaas kadib dhalashada siina laakiin gabadha ayada 4 bilood laga waday hooyada aabeena siyaasi waa siyaad bare safaaradu shaqeynaa dulmaasi waa hooyadana booqashay ku imaado odayga u imaado meesha ku dhalatay waa la cili wax ingiriis iyo sharci waxba iska ma galin shaqada kuma dhalashada ma la sii karo sawirka la wado fanaanada bluugtan ayada ma taas ma fahanteen walaalayaal gabadhan waxa Leylo aadan cali xasan Allah magaceeda waa Soomaali waxa raxweyn waa digil waa shanta caleemad qabiil laan dheero meel banaan digo aad loo yaqaan dawlad maxda ilaa hadana awood ay leeyihiin nimankan waliba iskala shan jufo weyn oo kala baxan gabar laan dheero meel banaan tooda gabadhan waxa mataqaanaa sida ayada sheegtay hooyadeed iyo waxeedo dhan run waxa mataqaanaa qisada inta dambe inta ay ka sheegtay laakiin arinta waalidka iyo walaaleed been ay ka sheegtay aabeed 2007 dhinta Allah naxariisto waa ogaa gabadhiisa waana ka warqabay madiino deganaa oo aad loo yaqaan way aadan xasan Allah nin shanta caleemad aqoorin ma jira aabeed aad loo yaqaan hadda badan shanta caleemad waa yaabayaan sababtoo odayga 20 caruur dhalay haddana 13 nool wax si dhaleen marka hadda markay arkaan ay dib u xasuusanayaan walaad u fiirso gabadhan horta hooyadeed ayada ugu yareed macnaha reerka ayada ugu yareed 3 wiil iyo gabar la dhalatay maanta waa nool yihiin mid Masar jooga mid Garowe mid ingiriiska gabadhan xamar ay joogtaa wayna inkirtay waxay tiri ma aqaanay tiri walaalay waligay ma arkin aabeedna way inkirtay aabeed intii ayadoo laba gabdhood haysato Muqdisho ku haysato oo ninkaas ilma habreedka lagu daray ee aabeed u imaanaysay oo asagana u tagay balaad u fiirso macnaha waxa waa confirm man million confirm way taasna been ay ka sheegtay
marka walaalayaal waxa waaye gabadha horta waxa waaye ayadii habaryashadaas haysto wax ka dhaxeeyna ilaaha og laakiin habarinteeda inay celisay waxa waaye waa sax waaye marka ingiriiska imaadeen oo 95 markii laga soo waday ayadoo afar jira 5 jir ku dhawaada habarinta soo waday waxay ka ingiriiska macna gabadheeda aan dhala xamal ayadii ilmeeda saasa dhalasho lagu sii 8 sano kadib waxay imaadeen Leicester waxay joogeen gabadhii waday xataa maamaas caashada gabadha ayda dhashaata xamar ku celisay oo leele kaligeed ma wallahi billahi tallahi maxay ayda 3 jir la celiyay kolay waa maamada celisay ilaaha og anaga ma ogin laakiin gabadha markii la geeyay waa tinkaas lagu daray waxaas waa 20 sano xabsi ku jiri waa sheeko oo reerkan ay ku weerarayso waana reer arin rax taalo waana la heshiisii karaa habaryasheeda ayada waa la heshiisii karaa oo intaas inay u gafto hataa ma ahayn oo intaas habaryashaas waalid u gafto ma ahayn maxay la caashada ay leedahay dhibaatada ii geysatay caashada waxa marka wadaba gabadha raad u fiirso 94 wallahi wax xaqiiqo waxa idin sheego waana ka dad video ku jirta muuqaalada soo socdana waa arkadu hadii ilaahay raad wax confirm ah way marka gabadha hadda process loo furay waa processka horta holan loo furaa raad u fiirso processka holan loo furaa hadda wareysada waxa inuu jiiso hadaladeeda inuu dhaafmaan hadaladeeda haduu isla dhaafo oo dhamaatay sababta holan waxay leedahay markii koow aad dhiibay sharciga lagu siinayo dhalashada hooyada caasha ahayd haddana maxaa hooyada habarta caasho waa dhiis baad u fiirso xaraal hada marka waxa way kiis wuxuu noqonaa kiis jid aan ku jiido noqonaa marka gabadha wareysada laga dhaafo ama caada leen gabadha loo soo wada yurub la keen laakiin ingiriiska waxba kama yaalo million confirm wax ingiriiska yeel male taas ma fahanteen isku soo dubalay gabadha horta waxa way waalidkeedan waa inkirtay walaaleedna waa inkirtay oo maanta waa nool yihiin oo walaashi la dhanto ku abooyo ee suuq isku raaci jireen wallahi billahi ana bidi shay iska warqabayeen assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh